dhinaca kalena xukuumadda Somaliland ayaa ku eedeysay Puntland in ay dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada Laascaanood ay ku soo biireen ciidamo ka socda maamul goboleedka Puntland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle. xukuumadda Somaliland oo goordhoweed ka soo saartay warmurtiyeed kooban oo soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ana afayeenka xukuumadda Saleeman Yuusuf Cali Kore ayaa waxa qoraalkaasi oo laga baahiyay wasaaradda warfaafinta gaar ahaan telefishinka iyo idaacadda radio Hargeysa ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada Somaliland oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira argagixiso ciidanka BSF ee maamul goboleedka Puntland iyo dad deegaanka ah oo la soo qalday waa sida lagu sheegay qoraalka xukuumadda Somaliland waxa ay sii deysay baa lagu yiri qoraalkaasi maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee holadeedii lagu wareejiyay maanta. dhinaca kale maanta barqadii war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo ku saxeexan yahay Cabdilaahi Axmed Caarshe agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa isagana lagu sheegay sidan waxaa saaka 5:00 subaxnimo mar labaad soo weeraray fadhiisimada ciidamada Somaliland ee magaalada Laascaanood kooxaha argagixisaha kuwaasi oo kooxihii shalay subax weerarka ku soo qaaday ciidamada Somaliland iyo xarunta golaha wasiirada kooxaha argagixisada sida lagu sheegay qoraalka ee saaka soo weeraray fadhiisimada ciidamada Somaliland waxa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka Puntland kuwaasi oo si toos ah ugu biiray dagaalka saaka. waxa kale oo iyana dagaalka qayb ka ah baa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ciidamada la baxay Khaatumo. qoraalka oo sii socda waxa lagu sheegay waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka wadamada jaarka ah midowga Afrika urur goboleedka IGAD qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta in dagaalka Laascaanood ay iska kaashadeen kooxaha argagixisaha iyo maamulka Puntland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira. xukuumadda Somaliland waxa ay ku suntan tahay baa lagu yiri qoraalkaasi nabad iyo horumar waxayna ku jirtaa isdifaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadawga ku soo duulay sida lagu sheegay qoraalkan. waxa kale oo aanu beesha caalamka la socodsiinaynaa iyo shacabka Somaliland in maamulka Puntland dagaal ka abaabulaya Garowe iyagoo qorsheynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada Somaliland ee jiida hore waxayna ciidanka qaranku sida lagu sheegay qoraalkaasi diyaar u yihiin baa la yiri isdifaac. Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa. haddaba hadalka Somaliland ee dagaalka Laascaanood waxaa ka jawaabay maamul goboleedka Puntland oo iyaguna maanta soo saaray war-saxaafadeed. waa kan wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo inoo soo koobaya war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland. war-saxaafadeedka Puntland ay ka soo saartay dagaalka ka soconaya Laascaanood oo ka kooban ilaa 5 qodob ayay ku yiraahdeen Puntland waxa iyadoo ka duuleysa dagaalka gumaadka ah ee ay maamulka Somaliland ka wado magaalada Laascaanood soo saartay qodobadan. dowladda Puntland waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka Somaliland ka wadaan magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada waana nasiib darro ay yiraahdeen in maamulka Somaliland ku tilmaamaan shacabka magaalada Laascaanood iyo hogaankooda dhaqanka inay yihiin argagixiso. dowladda Puntland waxay cadeynaysaa inaysan qayb ka ahayn dagaalka ka socda magaalada Laascaanood uuna yahay dagaal dadka shacabka ah ee reer Laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan yiraahdeen ciidamada Somaliland ee muddada 15 sano ahayd ku haysta shacabka magaalada Laascaanood caburin dilal qorsheysan xarig iyo tacadiye kaleba si qorcaaradiisa ay ugu qasbaan rabitaankooda gooni-goosadka ah una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. 3 dowladda Puntland sidii horeba u sheegtay waxa ay soo dhaweynaysaa in dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan ismada dhaqanka ay ayahooda ka tashadaan. 4 dowladda Puntland waxa ay magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini'aadanimada. sidoo kale dowladda Puntland waxa ay hay'adaha caalamiga ah ugu yeeraysaa inay gacan ka geystaan sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada Laascaanood iyo kuwa dhaawacmay. qodobka ugu dambeeya 5aad ayaa lagu yiri waxa maamulka Somaliland ugu baaqaynaa inay si degdeg ah u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ah ku hayso kalana baxdo ciidankeeda Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka. Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe.